wafdi ka socda dalalka beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera dhinacyada dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka oo Arbacada 18 Disembar soo gaadhay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa hotel Mansour kulamo kula qaatay xisbiyada mucaaradka ah iyo ergadii dhexdhexaadinta ee xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland. Kulamadan oo ay si gooni ah ula qaateen wafdigan beesha caalamku ergada iyo xisbiyada mucaaradka ayaa waxa diiradda lagu saaray arrimo la xiriira khilaafka komishanka cusub ee doorashooyinka ka ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda muddo kordhinta golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland iyo waliba go'aamadii ergada dhexdhexaadintu ka soo saartay khilaafka oo ay dhammaan xisbiyadu aqbaleen. Xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid oo ka mid ah hoggaanka xisbiga wadani iyo xogayaha gobolada iyo degmooyinka u cid mudane Cabdiqani Salaf oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ergada beesha caalamku ay Soomaaliland u yimaadeen xalinta khilaafka xisbiyada iyo xukuumadda iyo waliba dib u dhaca mar kale ku yimid doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid oo ka mid ah hoggaanka xisbiga wadani ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland loo baahan yahay inuu aqbalo go'aanka ergooyinka sida ay u aqbaleen xisbiyada mucaaradku, waxaanu sidoo kalena faahfaahin ka bixiyay qodobada ay ka wada hadleen wafdiga beesha caalamka. socdaalkooda nimanka wuxuu la xiriiray arrimaha doorashada ma garanaysa runtii dib u dhacay iyo khilaafyadan soo noqnoqday ama komishanka la xiriira guddiga komishanka doorashooyinka ama muddo kordhintii golaha guurtidu sameeyey ma garanaysa labada sanadood ahayd la xiriidho oo runtii aanay jeclaysanin arrimahaasaan runtii aanu isla eegaynay. dhinaca kale kolley ee xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisana waxaanu ka rajaynaynaa sidaa ay labada xisbi u qaateen ee danta ummadda ay ugu tanaasileen iyaguna inay noola qaataan baanu rajaynaynaa oo danaynta ay ummadaha shisheeye danaynayaan arrimaheenna aynu inaguna si ka badan u sii danayna arrimaheenna. xogayaha xidhiirka gobolada iyo degmooyinka cudi Cabdiqani Ibrahim Salaf ayaa dhankiisa sheegay in wafdigan beesha caalamku ay isla fahmeen qodobada ay ka wada hadleen, sidoo kalena labada xisbi ay u gudbiyeen go'aankoodii qabsoomida doorashada iyo aqbalaadda go'aanada ergadu ka soo saareen khilaafkii xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. labada xisbi waanu la kulannay, waxaanu kala qaadanay information marka arrintuna waxay ku eg tahay brobosalkii ay soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadintu oo aanu mahadnaqayno oo haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka aqbalnay horena aanu u sheegnay. marka maanta hadalku wuxuu ku kooban yahay inaanu isfahanay doonariska diyaarna aanu nahay inaanu wada shaqayno. dhinaca kalena guddoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah oo la hadlay telefishinka codka bariga Afrika ayaa sheegay in kulankii ay la qaateen beesha caalamku ay ku bogaadiyeen go'aanada ay soo saareen iyo xalka ay ka gaadheen khilaafkii xisbiyada, sida oo kalena ay u sheegeen in ay ku garab taagan yihiin go'aanada ay soo saareen sida uu hadalka u dhigay. go'aamadii aanu soo jeedinay in lagu xaliyo dhibaatada ka taagan dalka ee siyaasiga ah ayaa ay u bedeleen mahadnaq iyo inay yidhaahdaan waanu idinku taageersannahay waanaanu idin garab taagannahay. ugu dambayn Khamiista 19 Disembar ayaa la filayaa in wafdigan ay kulan la qaataan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Xamse Xirsaxayd, wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika, magaalada Hargeysa. si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika, fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.